عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan salaamayaa akhyaarta ku xiran channelka ardayda waxa weeyaan jecel barashada luqadda Carabiga dhamaantiinba Ramadaan Kariim baan ilaahay meel joogtaan daafaha caalamka waxaad ku soo dhawaataan darsigeenii 22aad iyo kitaabkeenii ad-duruus al-lugha al-arabiyya lighayr naatiqina biha al-juz' al-awwal juz'kii koobaad insha Allah cashirkeenan wuxuu ku saabsan yahay kulley ama la inagu barayaa ممنوع من الصرف وحلا يرعضه أما كلمتها وحوي كممنوعة إن لا صرفيه أو معناها صرف وحلا ولا مركزي ممنوع من التنوين تنوين تأيو يما خاصرقة إيه تنوين تأيو كممنوع هاي كلمة مركزي سيجرى هورين أدو صدقتين وح قار كمدة هل كان حوالي يسقو مركزي لا يرفع فاهنيو أي مركزي أما كلمة بدن لقاته سيو كلمتها مركزي ممنوع من الصرف جاء ayaan cashirkan markaasi insha Allah ku qaadanaynaa darsigana waa kii markaasi 22aad waana fiidiyoogii 32aad xagga fiidiyoyaasha marka cashirkan wuxuu ka bilaabanayaa cashirkan markaasi Hamid tabibun wa zawjatuhu mudarrisatun ismuha Amina Hamidun lahu 4 abna'in hum Hamza wa Uthman wa Ahmad wa Ibrahim أحمد وحمزة طالبان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان قال يوسف عندي 5 أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب عندي مناديل كثيرة هذا عندي مناديل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق قالت لها فاطمة عندك مناديل أخضر قالت لها ما عندي مناديل أخضر قال طلحة عندي مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة قال السفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء لا هم مدرسون وهم علماء كبار ما شاء الله كل أخرنتها وحويان إن لفهمي حامد أيا وحويان حامد طبيب حامد ودختر زوجته مدرسة حاسكي سنة وحوي معلمة اسمها آمنة مقعد وآمنة حامد له 4 أبناء وحليه أفرويل هم وحيكليهين حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم ضمان مقعد أصلك كجرتاي وممنوع من الصرف حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم لما أنتود وممنوع من الصرف معناها تنوين مقاطان أولا مرة هيو حمزة عثمان أحمد إبراهيم لمرة هيو وممنوع إن على يراهدو إن تنوين لصارو أما حمزة عثمان أحمد إبراهيم أما إبراهيما midkay doonto ha noqoto tanwiin laba koosdhig ama laba kordhig ama laba gudaal ma qaadanayaan kelmadahani maxaa yeelay waa mamnuuc min as-sarf sababo markaasi kala duwan ayay laakiin mamnuuc min as-sarf ay ku noqdeen Hamza wuxuu mamnuuc min as-sarf oo ku noqday waa ismun oo markaasi ay u dambayso calaamatu ta'niith ama ta'u ta'niith ay u dambayso ta'u ta'niithka u dambeeya magacan ayuu ku noqday isaga oo markaasi magac calam ah oo magac qof ah oo laakiin taa marbuud ah ama taa ta'niith ay u dambayso ayuu wuxuu ku noqday mamnuuc min as-sarf Uthman magacda sidan Uthman oo kala ah Hamza waxa la mid oo kale Talha ayaa la mid ah Hamza magacda noocaasi ah Ubayda magacda noocaasi ayaa markaasi la mid ah waa mamnuuc min as-sarf Uthman Luqman magacda noocaasi iyaduna waxa weeyaan mamnuuc من الصرف صفوان
mamnuuc waxa weeyaan luqmaan waxa weeye magacda noocaas iyaduna waxa weeye mamnuuc min asarfi alif iyo nuun ay u dambayso ismu markaasi calam ah oo qof lagu magacaabo ama meel lagu magacaabo oo alif iyo markaasi nuun ay u dambayso waa mamnuuc min asarfi alif iyo nuun ay u dambayso mamnuuc min asarfi axmed magacda noocan ah axmed anwar magacda noocaasa waxa weeyaan calaa siiqati markaasi afcala la miisaanka ah iyaguna waxa weeye mamnuuc min asarfi sidoo kale ibraahim isaguna wuxuu mamnuuc min asarfi uu ku noqday waa ismun cala markaasi cajami ah waa cajami laysa carabi marka ibraahim nabiyullaahi ibraahim carab ma ahayn macnaha magacani magac carbeed ma aha waa magac cajami ah yacni luqado qalaad weeyaan oo kale weeyaan waxaana lamid ah dhammaan magacda ambiyada siday u dhan yihiin waxaa ka ahayn ama marka laga soo reebo 6 magac sida Muxamed, Saalix, Shucayb, Luud, Nuux, Huud intaas markii laga soo reebo waxa weeyaan dhammaan waxa kale waa cajami waana mamnuuc min asarfi waa mamnuuc min asarfi macnaha tanwiin ma qaadani karaan waxaan ka ahay 6 aan sheegnay Muxamed, Saalix, Shucayb, Luud iyo Nuux iyo Huud intaas waxaan ka ahay waxa weeyaan waa mamnuuc min asarfi 6daas laakiin way sarfismaysaa oo Muxamedun baa la oranayaa Shucaybin Shucayban buu noqon karaa waxa weeyaan Saalix Saalixun Saalixan Saalixin buu noqonayaa Saalixun laakiin Ibraahim iyo Ismaaciil iyo Isxaaq iyo Muusa iyo Ciisa iyo Zakariya iyo Yaxya iyo waxa weeyaan Suleymaan iyo dhammaan magacdaasi Daa'uud iyo waa mamnuuc min asarfi laano asmaa cajami weeyaan waa magac cajami ah marka taasina waa inaad haysataa insha Allah waxaa la markaasi Axmedu wa Xamsatu Taalibaani Axmed iyo Xamsa waa 2 arday Axmedun lama dhahayo markaasi Axmedu waa laana Axmed waa mamnuuc min asarfi ala siiqati afcala ayuu ku yimid طالب وأرضي ويان مجتهد أو ددالة وحمزة حمزنا طالب وأرضي كسلان أيضا السودو كلا ومنوع من الصرف وحال مدى كسلان عطشان غضبان ملآن مقعد النوعاسي أما صفة النوعاسي وصفة مقع ماهن صفة مركاسي أيضا ألف نون أي أضم بيسو أيضا ممنوع من الصرف سيدا غضبان عريسا كسلان عاجز عطشان haraadan jawcaan gaajaysan magacda noocaasa ama asmaa sifooyinka noocaasiya leh ayaa wax iyaguna mamnuuc min asarfi oo Uthman iyo waxay kala duwan yihiin kaslaan Uthman waa ism caadi oo qof loo bixiyo kaslaan iyo cadshaan iyo ghadbaana waa sifo wax qof lagu sifeeyay ama wax lagu sifeeyay weeyaan ama lagu tilmaamay marka laakiin waxay ka midaysan yihiin alif iyo nuun baa waxa weeyaan labadoodaba u dambeeya waxay kale ka midaysan yihiin waa mamnuuc min asarfi tanwiin ma qaadanayaan qaala Yuusuf ayaa yiri Yuusuf isaguna waa mamnuuc min asarfi Yuusuf Yacquub Isxaaq Ismaaciil waa mamnuuc min asarfi waxaan nidhi dhammaan magacda ambiyada waxaan ka ahay 6 aan sheegnay waa mamnuuc min asarfi qaala Yuusufun la dhihi maayo qaala Yuusufu baa la dhahayaa qaala Yuusufi nama noqonayso oo kasrana ma qaataan baan nidhi waxa weeyaan tanwiinna ma qaataan wixii mamnuuc min asarfiya qaala Yuusuf ayaa yidhi cindii 5 aqlaamin waxaan haystaa 5 qalin haadaa qalamun axmar kani waa qalin axmar ah axmar iyaduna waa mamnuuc min asarfi axmarun la dhihi maayo waa sifo iyaduna ku timiday على صيغة أفعل كتمتي مركا وحي لمدة أحمر أزرق أسود أبيض وممنوع من الصرف إيونا كوانا وينات كدرستها وهذا قلم أزرق كان وقال مركاسي أزرق أما وحويا أزرق
waxa weeye markaasi buluug. khadkaan iska xirayaa. waxa weeye markaasi allahuma salli ala maxamed. wahada qalamun akhdaru, kana waa qalin markaasi cagaara. wahada qalamun aswadu, marka midabada oo dhan waxa weeyaan waa mamnuuc min asarfi. wahada qalamun asfaru, kana waa qalin asfar ah. qaalat zaynabu, zaynab iyaduna waa mamnuuc min asarfi, sababtoo ah waa ismu calam ah, waa ismu calam oo mu'anath ah. ismu markaasi calam mu'anath waxa weeyaan waa mamnuuc min asarfi. waxaa lamid a caaisha, faatima, asmaada dumarka oo dhan waxa weeye waa mamnuuc min asarfi. cindii manaadiil, waxaan haystaa manaadiil. manaadiil iyaduna waa mamnuuc min asarfi. waxa weeyaan waa jamac markaasi siiqati muntaha aljumuuc la yiraahdo, calaa siiqati muntaha aljumuuc. waa markaasi waa jamac kasta oo markaasi qaabkan oo kale u dhigan: manaadiil, mafaatiix, basaatiin. jamaca noocaasi ah waa mamnuuc min asarfi. sidoo kale masaajid, madaaris, jamaca noocaasiya isaguna waxa weeyaan waa mamnuuc min asarfi weeyaan. manaadiilu kathiiratun, manaadiilu kathiiratun, kuwan waxa weeye waa istiraashooyin ama waa afmaris, ama waxa weeyaan waa afmaris markaasi kathiiratun badan, afmarisyo markaasi badan weeyaan. haadaa abyadu, kani waa mid cad. wahaadaa asfaru, kana waa mid asfar ah oo waxa weeyaan huruud ah ama jaalle ah. wahaadaa axmaru, kana waa mid cas. wahaadaa asraqu, kana waa asraq. marka waa mamnuuc min asarfi. midabadaas iyaguna waad arkaysaa, damo keliya, hal damo ayay qaateen. qaalat waxay tiri lahaa faatimatu, faatima ayaa tiri yaa cindaka mindiilu, mindiil ma haysaa? akhdarun, mindiilun akhdarun, mindiil markaasi ma haysaa? akhdarun, mindiil hadda waa mufrad, markuu jamaca yahay buu mamnuuc min asarfi noqonayaa. mindiilun akhdaru ay noqonaysaa markaasi, akhdaru. qaalat waxay tiri laa, maa cindii mindiilun akhdaru, ma hayabay tiri mindiil ama afmaris akhdar ah ama cagaar ah ayay tiri markaasi. qaala talxa, talxa isaguna markaasi talxatu weeyaanoo talxatun la dhihi maayo. talxa waa mamnuuc min asarfi, waa ismu calam markaasi aakhiruhu taa ta'niith, taa ta'niith ba u dambaysa. waxaa lamid a talxa, xamza dee imika aan soo arkaynay, magacda noocaasiya iyaduna waxa weeyaan waa mamnuuc min asarfi. cindii qaala talxa, talxa ayaa wuxuu yihi cindii mafaatiix kathiira, mafaatiix waa mamnuuc min asarfi liannahu waa jamac calaa siiqati muntaha aljumuuc baa la yidhaahdaa. waa jamac markaasi siiqati muntaha aljumuuc ah, oo yacni jamac halkii ugu fogeyd ee jamaca yacni qaabkii loo jamcinayay ayuu ku yimiday. mafaatiix, manaadiil, waxa weeyaan basaatiin, magacda noocaasiya waxa weeyaan jamaca noocaas u jamcismaya waa mamnuuc min asarfi weeyaan, waa mamnuuc min asarfi. kathiiratun, haadaa miftaaxu lqurfati, kani waa miftaaxi qurfada. haadaa miftaaxu lqurfati waa mudaaf iyo mudaaf ilayhi. wahaadaa miftaaxu lxaqiibati, kana waa miftaaxi markaasi xaqiibada ama boorsada. wahaadaa miftaaxu sayaarati, kana waa furihii gaariga. qaala sufyaan, sufyaan ayaa wuxuu yidhi qaala sufyaanu, sufyaan iyaduna waa mamnuuc min asarfi, sababtoo ah waxay mamnuuc min asarfi ku noqotay waa ismi markaasi uu u dambeeyo aakhirkiisa uu ahaaday alif iyo nuun. sufyaan, cuthmaan, luqmaan, kuwii noocaas ahaa, salmaan, waa mamnuuc min asarfi. fii baladinaa, uu yihi sufyaan baa wuxuu yidhi fii baladinaa wadankeena masaajidu, masaajid ayaa jirta. masaajidun lama dhahayo, masaajidu, madaarisu waxa weeyaan waa mamnuuc min asarfi liannahu waa siiqatu muntaha aljumuuc weeyaan, waa jamac markaasi. wa madaarisu iyo madaaris baa ahaaday. kathiiratun oo fara badan. wa fanaadiqu iyo huteelo, qaliilatun yar. ahaa-ulaa'i atibaa, kuwan ma dhakhaatiir miyaa? laa maya, hum iyagu mudarisuuna waa macalimiin. wa hum iyagu culamaau kibaar, waa culamo markaasi waaweyn. culamaa isaguna markaasi waa siiqatu muntaha aljumuuc, waa mamnuuc min asarfi. culamaa
okay. Marka اللهم صل على محمد. marka waa tan almamnuuc min asarfi, kelmadaha markaasi mamnuuc min asarfiga waa kuwa halkan markaasi lagugu soo koobay. inta markaasi mamnuuc min asarfiga ah alanwaac alaatiya, noocyadan soo socda min alasmaa oo magaca mamnuucatun waa mamnuuc ayay ka tahay min asarfi in la sarfiyo, oo macnaha tanwiin in la saaro ayaa mamnuuc ka ah. zaynabu, maryamu, faatimatu, caaishatu, makatu, juddatu. هذه الأسماء كلها ممنوعة من الصرف لأنه وحويا واسم علم. اسم علم وعلم وحالا يرادا علم كان هذه ماهن علم وحي ليس لك معروف أما قف لوgu magacaabo ama meel loogu magacaabo calam baa la oranayaa wixii ma garanaysa magaci la isla karnayo waa calam. marka waa asmaa markaasi calam ah oo mamnuuc min asarfi ah, oo mamnuuc min asarfi ah. markaasi waxa way waa calam muannath, calam muannath weyn, waana calam waana muannath. alcalamiya wa ta'niith baa ayay kulansadeen. calamiya inay calam yihiin iyo ta'niith iyay markaas inay dhadig yihiin. labadaas sababood ayay markaasi magacdaasi iyo magacda kale la mid ah dhammaan ay ku noqdeen markaasi mamnuuc min asarf. hamza waa la mid iyaduna, waxa u dambaysa taa u ta'niith baa u dambaysa, waana calam wa aakhiruhu taa u ta'niith. usaama, mucaawiya, talxa, kullu hadhihi alasmaa aydan mamnuucatun min asarf, oo markaasi ma qaadanayaan tanwiin, qaadani maayaan laba gudaal ama laba kordhig ama laba hoos dhig ama hal hoos dhigna ma qaataan, hal hoos dhigna ma qaataan. markaasi hoos dhigga isaguna waa ka mamnuuc, tanwiinkuna waa ka mamnuuc. labadaa shay baa ka mamnuuc, waa tanwiin oo ah laba kordhig ama laba gudaal iyo hoos dhigba, ama hal ha ahaado ama laba ha ahaadee, hal hoos dhig ama laba hoos dhig ha ahaadee waa ka mamnuuc. isaguna mamnuuc oo ku jira, macnaha waxaa ka mamnuuca tanwiinta iyo kasrada ayaa ka mamnuuca. waxaa mamnuuca la sheegay waa labadaas shay. cuthmaanu, cafaanu, sufyaanu, marwaanu, nucmaan, kuwana waa mamnuuc min asarfi. maxay mamnuuc min asarfi ku noqdeen? waxay mamnuuc min asarfi ku noqdeen waa ismu calam. ismu calam markaasi wa aakhiruhu alif wa nuun. alif iyo nuun baa markaasi u dambaysa. alif iyo nuun ayaa markaasi u dambaysa asmaada markaasi calamka ee sidan oo kale alif iyo nuun u dambayso dhammaan waa lamid, iyaguna waa mamnuuc min asarfi. halkan kale kaslaan, jawcaan, cadshaan, shacbaan, shabcaan, mal'aan, وهذه الأسماء كلها أيضا ممنوعة من الصرف. iyaduna waa mamnuuc min asarfi. waa sifo, asmaa ma ahina, cafwan waa sifo weeyaan. kaslaan, jawcaan, cadshaan waa sifo, sida kan kale ka horeeya isagana aakhiruhu alif wa nuun ay u dambayso, laakiin midna waa magac midna waa sifay ku kala duwan yihiin, waxayna ku midaysan yihiin mamnuuc min asarfi. axmedu, anwaru, akbaru, ascadu, iyaguna sidoo kale waa waxay ku yimaadeen calaa wasni afcala ayay ku yimaadeen, oo wixii afcala ku yimaado oo sidaas oo kale ah iyaguna waa mamnuuc min asarfi weeyaan, oo tanwiin ma qaadanayaan iyo hoos dhig. abyadu, aswadu, axmaru, asfaru, akhdaru, asraqu waa midabadii, waa mamnuuc min asarfi iyaguna. william, edward, london, paris, باكستان، بغداد، إبراهيم. وهذه الأسماء ممنوعة من الصرف. إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يونس، يوسف ومقع عجمية ليست عربية. هذه الأسماء ليست عربية، إنها عجمية وعجمي وحوي ومقع قلادوي. أسماء مركزي عربية ما سيدا استرتيد وممنوع من الصرف وتنوين قاضن مايان. أغنياء، أصدقاء، أقوياء، أطباء وجمع مركز يقول وحي ممنوع من الصرف يكون نقدين جمع نوعا أو كلاء يسقون هو ممنوع من الصرف. مركزي أن ألف وحي ألف مقصور أي آخر كودا كونا ألف ممدود، فقراء، وزراء، زملاء، علماء، ألف ممدود ويان وعلى صيغة منتهى الجموع بالغة، وجمع مركزي آخر كيسة
alif markaasi mamduud ayaa u dambeeya. alif fidsan iyo alifkii gaabnaa. aghniyaa waa alifkii gaabnaa, fuqaraana waxa weye waa alif mamduud baa la yidhahdaa. wuzaraa, zumalaa, culamaa iyaduna sidoo kale waa mamnuuc min asarfi weeyaan oo tanwiin qaadani maayaan. masaajid baa lamida. madaaris waa siiqatu muntaha aljumuuc, kuwan waa siiqatu muntaha aljumuuc weeyaan. masaajid, madaaris, fanaadiq, makaatib, daqaa'iq, manaadiil, mafaatiix, fanaajiin, karaasi waa mamnuuc min asarfi. wixii sidaas oo kale ah dhammaan waxa weye tanwiin qaadani maayaan. okay, halkan waxaa la iqra alkalimaat alaatiya waktubha maca dabdi awaakhirihaa. kelmadahan waad ka shaqeynaysaa wixii mamnuuc min asarfiya iyo wixii kale inaad kala saarto oo aad markaasi xarakayso. wixii tanwiin qaadani karan tanwiintiisa aad siiso, wixii tanwiin aan qaadanayn ee mamnuuc min asarfi ah sababtuu doonaba mamnuuc min asarfi ha ku noqdee waa inaad garato oo aad hal damo keliya saarto ayaa lagaa rabaa. muxamed, muxamedun baad dhahaysaa mise muxamedu. khaalidun mise khaalidu. maryamun mise maryamu. faatimatu mise faatimatun. cabaasun mise cabaasu. xamzatu mise xamzatun. masaajidun mise masaajidu. kutubun mise kutubu. midkii ay noqonayso waxweeye waa inaad kala saartaa oo aad kii damo qaadanaya hal damaad saarto, kii laba damo qaadanaya aad labadiisi damo saarto oo macnaha aad u kala saarto mamnuuc min asarfi iyo waxa weeyaan kii sarifmayay markaasi. alkalimaat aljadiida, kuwan waa kelmadihii cusbaa. alfanaajiin waa koobab. fanaajiinu waa koobab weeyaan. alfinjaanu finjaanu waxa weeyaan waa koob. fanaajiinu waxa weeye markaasi koobab weeyaan. fanaajiinu waa jamci. almadrasatu jamcigoodu waa madaaris, madaarisu. almasjidu masaajidu. addaqiiqatu daqaa'iqu. qaala qaalat. almandiilu manaadiilu. almiftaaxu mafaatiixu. abyadun ama abyadu. axmaru akhdaru aswadu asraqu asfaru waa midabadii kuwaasna. marka insha allah cashirkan in la fahmaan jeclahay, ha laga faa'iidaysto insha allah, hana lasii sheer gareeyo waxa weeyaan insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.